maanta waxaan rabaa inaa waxyar dib xasuusin idin sameeyo ama dib u xasuusano in mar walba ay jiraan xanuuno nafsi ee ka baaxad weyn yihiin ama ka tiro badan yihiin intii hore aan u ogeyn ama intii aan hore u naqaanin. waxaa jira xaalado badan oo marka hore isdheheenay xanuun nafsi ma ahan ama wadamada kale un bay ku eg tahay in hadeertaan ay imaadeen ama aniga aan indhahayga ku arkay. marka muhiimadda ugu weyn aan ka leeyahay waxay tahay in xanuuno nafsi ama mental health markii la dhahayo qof walba inuusan u fahmin waali. dhowr marna waa soo sheegay yani ma ahan inaa waalan tahay, ma ahan inaa wax ka qaldan yihiin, ma ahan inaa daciif tahay. sidaa ugu baahan tahay dhakhtar caadi mar walba waxaa ugu baahan tahay dhakhtar nafsi. xaaladaada nafsi ka warqab, haddii ay ka halaawdo waxay ka xun tahay in ay ka halaawday xaaladahaada jismiga. aada u mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. halkani waa xarunta Carefesol, xaruntii ugu horeysay ee nooceeda ah ee lagula tacaalo dadka qabatiimay isticmaalka maandooriyaha lagana hirgeliyo Soomaaliya. halkani ma aha xabsi ama goob lagu jirdilo dhibanaha ee waa goob uu ka helayo dib u kabasho dhameystiran. waxaa sidoo kale u sameynaa bukaanka wacyigelin nafeed, tababaro xirfadeed, la talin caafimaad iyo ka dhaqista qabitinka maandooriyaha. Carefesol saaxiibka dhibanaha. wixii faahfaahin waxaad nagala soo xiriiri kartaan taleefoonnada shaashada kaga muuqda.